degmada booqe gobolkan doolo waxaa laga dhagax dhigay dhismaha cusbitalka darajada koowaad oo laga hirgelin doono isla magaaladani haddaba cusbitalkan darajada koowaad ee laga hirgelin doono degmada booqe gobolkan doolo ayaa waxaa si rasmi ah loogu wareejiyay shirkadda dhismaha Xaaji Buule dhulka ay ka dhisi lahayd cusbitalka magaalada Booq oo ah cusbital dhismihiisu uu fulinayo xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida waxayna mas'uuliyiinta maamulka gobolka doolo iyo kuwa degmada booqe gobolkan doolo ku wareejiyeen shirkadda dhul cabirkiisu dhan yahay 12,000 oo kilomitir gudoomiye ku-xigeenka gobolka doolo mudane Cabdixakiim Faarax Jibriil iyo sidoo kale isku duwaha xafiiska caafimaadka gobolka doolo mudane Cabdinajiib Xasan ayaa ugu horeynta halkaasi warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida SRTV ugu waramay maanta waxaan joognaa magaalada Booq waxaan dhagax dhig iyo hand over sameeynay balaarinta hospitaalka Premier Hospitalka magaalada Booq oo adeegi doona insha Allah dad aad u fara badan oo degmada Booq iyo area-diisa dadka ku nool waxaan ku wareejinay shirkadda Qole Construction Xaaji Buule Construction Company dhulkaas oo ah 12 kilomitir oo dhul ah inuu bilaabo insha Allah galabta oo hadda waan dhagax dhignay shaqadii iyo service hawsha dhan waa dhameystiran tahay bilowgistii jooga shaqo iyo engineering dhameystiran boota muddo 18 bilood inuu insha Allah ku dhameystiraabo waxa agreement-iga heshiisku galay marka sidaan ugu wareejino shaqada bilaabaan hadda agreement waa sidaas soo shirkadiisii iyo shaqaalihii dad intuu soo rartay meesha keenay marka aan ku wareejino dhulkii waan u dhagax dhignay insha Allah waxaan rajaynayaa waqtiga loo qabto inuu si fiican ugu dhameystiri doono aad ba mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka nahay wareejinta balaarinta cusbitaalka darajada koowaad ee degmada Booq oo ah cusbitaalkii koowaad ee ka baxsan xarunta waxa weeyaan gobolka degmada Wareer oo laga hirgeliyo waxa weeyaan gobolka Doolo cusbitaalkan darajada koowaad oo dhismihiisu kharash ku baxay lacag ku bixinay oo bixinay xafiiska caafimaadka deegaanka waxaan ku faraxsanahay maanta inaan anagu ku wareejino shirkadii ku guuleysatay dhismaha waxaan tartankeedii nidaamkeeda dhan ku guuleysatay oo magaceeda la yiraahdo Xaaji Buule General Construction Company aan maanta anagu si rasmi ah ugu wareejino dhulkeedii dhulkaas oo dhan 12,000 oo kaare kaas oo ah intii loogu talagalay in laga dhiso 12 qaybood oo ah goobaha adeeg bixinta lagu balaarin doono cusbitaalka maanta balaarinta darajada koowaad ee waxa weeyaan cusbitaalka Booq maanta aan balaarinta dhagax dhig aan goob jooga u nahay waxaan markaa aad ugu faraxsanahay meesha uu ku yaalo waxa weeyaan degmadu meesha ku taalo oo xaqiiqatan ah meel bartama oo u dhaxaysa degmadii Booq degmadii Galaadi degmada Galxamur iyo waliba qaybo kamid ah degmada Danood in maanta waxa weeyaan ay fursad tahay annagana ahmiyad gooni ay noo tahay in balaarinta cusbitaalka laga hirgeliyo markuu dhamaado cusbitaalkan aan rajeynayno in wax fara badan waxa weeyaan baahi oo loo qabay inay u safraan dadku ilaa 180 kilomitir oo ah cusbitaalka ugu dhow cusbitaalka guud ee ku yaala magaalada Wareer 180 kilomitir inay u jiraan marka in maanta halkan laga dhiso balaarinta cusbitaalka oo aan rajeynayno sidoo xafiiska caafimaadku qorsheeyay in lagu gabagabeeyo sanad iyo badh laakiin shirkadu ay ballan qaaday wax ka yar sanad inay ku gabagabeynayso iyadoo aan ku kalsoonahay waxa weeyaan shirkadan balaarinta sameynaysa aad baan anagu ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa insha Allah haddii Allah uu ogolaado cusbitaalka markuu dhamaadaan wax fara badan buu xagga caafimaadka naga bedeli doona insha Allah haddii la yiraahdo aad iyo aad bay u mahadsanyihiin cid walba oo barnaamijka soo qaadato waxaan rabnaa in halkan uga mahad celiyo xafiiska caafimaadka deegaanka uu hogaaminayo waxa weeyaan wasiirka xafiiska caafimaadka Dr. Muuse iyo dhammaan cid walba ka qayb qaadatay barnaamijkan marka aad iyo aad bay u mahadsanyihiin dadka reer Booq ee soo dhaweeyay ee dhulkoodii iyo waxa weeyaan goobahoodii ku wareejiyay in cusbitaalka lagu balaariyana waan u mahad celinayna iyagana insha Allah haddii Allah uu ogolaado aad iyo aad baad u mahadsantiin wassalaamu calaykum dhinaca kale shacabka magaalada Booq ayaa iyana soo dhaweeyay dhismaha cusbitalka darajada koowaad ee laga dhagax dhigay magaalada Booq kaasi oo lagu soo gabagabeyn doono muddo dhan 18 bilood sida ay sheegeen maamulka gobolka Doolo iyo mas'uuliyiinta shirkadda magacaygu waa Faysal Cabdullaahi Warsame waxaan ka mid ahay odayaasha ka soo jeeda degmada tan oo degan magaalada madaxda Jigjiga odayaasha Jigjiga degan baan ka mid ahay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay isbitaalkan maanta noo lacag dhigay dareenkayaga lama koobi karo degmadan iyo wadan deegaanka ka agdhow oo aad u baaxad weyn baa ka faa'iideysan doona dhibaato aad u badan baana hore looga qabay caafimaadka xaggiisa dadka waxa ugu dhawaa in loo qaado hooyada foolanaysa waxa loo qaadi jiray Gaalkacyo waxa loo qaadi jiray Garowe waxa loo qaadi jiray Laascaanood
waxaa loo qaadi jiray wardheer intaa u dhaxaysa intaasoo magaalo wax isbitaal ah maysan lahayn oo gaarsiisan heerka hadda kan uu gaarsiisan yahay waxaan aad u rajaynaynaa dadka intaa tira leeg inay ka faa'iideysan doonaan ilaahay ha barakeeyo dawladdeena sharafta leh oo isbitaalka inoo hirgelisay inoo garatay runtii wax badan oo horena way qabatay dawladda tan wax badanna waa laga sugayaa insha Allah hadday noqoto deegaankeena dawladdeena barakaysan hadday noqoto heer gobol iyo hadday noqoto heer degmo iyo hadday noqoto wasaaradda caafimaadkaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha inoo barakeeyo guulna ha inoogu gaarsiiyo wanaagga iyo horumarka ay wadaana waxaan ilaahay ka weydiinayaa inuu anagana nagu anfaco baan aad u rajaynayaa aad baana maanta dareenkayagu haddaan shacabka nahay iyo odayaasha aad iyo aad baa dareenkayagu maanta u soo dhaweynaya arrintaas waan aad baan ugu faraxsannahay howlwadeennada oo dhan iyo SRTV iyo dhammaan aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa la dhahaa ayaa cilmi buraale maanta farxadayadu aad bay u sareysaa maadaama naloo keenay isbitaalkii weynaa oo maxay ahayto intaa oo degmaha inta u tartantay in ku guuleysanay aad buu noo farxad gelinayaa waxa weeye intii aanu ama Puntland aadi jirnay ama ilaa heer Jigjiga mar aan u aadi jirnay hadii ay maanta gurigayaga noogu timid oo annaga naloo soo safrahayo xag magaalana de waa magaaleysanayna xag caafimaadna waa helnay gabdhaha iyaga intii la sii wado umulaha bay wardheer sukadeeda am ku dhiman jireen ama Puntland sukadeeda ku dhiman jireen maanta mar horaan waxaanu maaragtay awal ku reysanay isbitaalka qalida markii naloo keenay oo anagu aan maxay ahayd isku tashiga iyaga ku waxaysanay awal baanu ku noolaanay oo in alla inta maaragtay daabiyadaha iyo santaradu way noo yimaadaan maalin walba waxa weeye gabdhihii oo dhan halkaas ay ugu badbaadeen hadda waxa weeye qofka tiisu gasho ma noolaado laakiin maaragtay haatan de kii ilaa Jigjiga rifitaalka ahaa oo loo aadi jiray ilaa Jigjiga ilaa wardheer iyo maanta aan ku guuleysanay aad bay noo maaragtay farxad gelinaysaa waan ku qanacsanahay dareenka booqna maanta lama malayn karo boqolkiiba boqol aad ba dareenka iyagu u sareeyaa